marka hore waxaan leeyahay maantay waa maalin weyn oo taariikh ah sababtu waxa ay tahay magaalada Barawe oo ah magaalo madaxda dawlad goboleedka Koonfur Galbeed waxa bilaabatay astaanteedii dhabta ahayd oo ahayd inay magaalo madax noqoto ummadda Soomaaliyeedna isugu keento halkan reer Koonfur Galbeed gaar ahaan reer Barawe waxaan leeyahay hambalyo furitaanka aeroboorku marka waxa uu wax ka tari doonaa isu socodka dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan doorkii magaalo madaxda Koonfur Galbeedna maanta ayaa dhidibada loo aasay waxaan leeyahay hambalyo reer Barawe arrinka labaad oo halkan aan rabo inaan ka sheego waxa ay tahay maadaama magaalo madaxdii Koonfur Galbeed Barawe aan joogno dawlad goboleedka Koonfur Galbeedna laga rabo magaalo madaxda inay ku shaqeeyaan yaan laga ogolaanin Cabdi iyo wasiiradiisu inay halkan ka laabtaan laga bilaabo saacaddan halkan waa meel taariikhi ah anigoo dhalin yar sanadku markuu ahaa 1989 markii aan rabay inaan nolol cusub bilaabo waa magaaladii aan ka bilaabay xaaji qamsiintii aan ka soo raacay 1989 bishii Maarso shanteedii halkan aan ku imid kadibna halkan aan doon ka raacay 2 usbuuc kadib waa mahadsantihiin martigelintii maalintaas iyo martigelinta maanta reer Barawe hadaatiin xusuusteyda marka waxay tahay bulshadii qadiimka ay beledkii bilnaayo Barawe ma nabad baa bulshadii barbaarta ay baarankii ku caanay Barawe ma nabad baa badweyntii Hindiya iyo bilicdii ku caanay baanaroomaha loo dhameeyay Barawe ma nabad baa bulshadii beeraleyda ay baad iyo baxaariba kuwii beerayayo Barawe ma nabad baa bulshadii geesiyaasho Boortaqiiska buuro Barawe ma nabad baa intaas waa abaalgudkii soo dhaweyntii 89 iyo soo dhaweyntii maalmihii aan mid halkan waxaa la dhihi jiray waagi halkan mid 89 Barawe waa beled nabada berigii qofkii yimaado waa la baafinaa ilaa hee basarkiisa la ogaado waxaan aad ugu faraxsanahay marka meeshan waxa maanta ka muuqda oo aan rabo inaan qiyaaso tusaale ahaan maalintii halkan aan imaanaynay oo aan dhagaxa dhigaynay waxaan ku nimid helicopter meel la maro ma lahayn dad badani ma aaminsanayn in meeshan ay garoon noqon doonto diyaarado ka soo degaan laakiin si taas loo gaaro wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed iyo dadka walaalaheena oo amisom oo nala jooga oo cadawga difaacaya ayaa naftooda ku bixiyay waxaan leenahay inta ku dhimatay Allah u naxariisto inta ku dhaawacdana ama dhaawac ku gaarana Allah caafiyo laakiin tusaale waxa ah halkan waxa lagu dhisay rabitaanka shacabka Soomaaliyeed wada shaqeynta dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo la shaqeynta beesha caalamka laakiin waxa lagu dhisay geesinimada shacabka reer Koonfur Galbeed
iyo rabitaankooda iyadoo xabad lagu ridayo inay dhulkooda xoraysteen dhisteenna garoonkan waxay ka turjumaysaa horumarka ummadda Soomaaliyeed. dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu marka ay wada shaqeeyaan ma aha kaliya in garoon baraawo laga dhisaayo laakiin waxay ku dhowdahay koonfur galbeed iyadoo kaashanaysa dowladda federaalka iyo ciidamada geesiyaasha ee qalabka sida ee sharafta leh ee Soomaaliyeed in dhammaan la xoreyn rabo dhulkii Shabeellada Hoose. inta dhimanna waxaan rabnaa inaan dhamaystirno waxaan rabaa inaan qof walba oo qayb ka ahayd u mahad celiyo in garoonkan la suurto geliyo waxa kale oo rabaa inaan halkan hortiina ka ballan qaado in 7 kiiloomitir oo isku xiraysa magaalada iyo garoonka inay dowladda federaalku idin ballan qaado